Asalaamu calaykum. Maalmahanba waxaan ka hadlayay arrin ku saabsan asalka qabaa'ilada Soomaaliyeed. Waxaa jira kan mid ka horreeyay videohan mid ka horreeyay oo aan duubay oo qabiilo ka mid aan ka hadlayo iyo asalkiisa. Maantay waxaan rabaa inaan ka hadlo qabiilka la yiraahdo Majeerteenka, asalkiisa meeshuu ka yimid. Waxaa sheeko igu soo gaaray in odagii Hartiyeed uu wiil wiilashiisa ka mid ah ka dhumay. Odagana sidaan sheeko ku maqlay wuxuu ahaa oday maaragtay indha beelay oo indhaha la'aa, sidaan sheeko ku maqlay. Wiilkii markuu ka dhumay, wiilkii waxaa la yidhi wuxuu u diray bal inay soo raadiyaan wiilashii la dhashay. Wiilashii say u raadinayeen wiilkii waa waayeen. Wiil kale odaga u soo qabteen marka. Odaga wiilkiyaa loo keenay, wiilkii uu korsaday. Wiilkii markuu korsado, wiilkii markuu xoogaa weynaaday, wuxuu noqday wax dhib badan. Wiilashii kale nafti u keenay oo wax walba wiilasha kale ay isku dayeen loo maaro waayo runtii. Marka waxaa dhici jirtay in intuu wax sameeyo oo markuu wax sameeyo oo la seexdo, wiilasha mid ka mid a intuu soo baxo uu maradiisii cad ka gooyo si waxa sameeyey loo ogaado. Markaasuu asagana inta soo kacu kulli ka wada goyn jiray. Adiga calaa kulli xaal cunug aad u dhib badan uu ahaa. Waxaa la yidhi odagii baa dhintay. Odagii markuu dhintay oo wiilashina ay waaweynaadeen runtii, odagii dhaxalkiisiyaa laisku qabsaday. Dhaxalka markii laisku qabsaday, waxaa oo asagu inta badan maaragtay eedda wado oo waxaa la yidhi qofkii odaga inta u taga meydkiisa qabriga ka soo qoda oo madaxa ka gooya, qofkaasaa maaragtay dhaxalka inta ugu badan qaadanaysa. Ninkan inta baxay oo odagii soo qufay meydkiisii uu madaxa ka gooyey oo madaxi keenay. Wiilashii kale naxdin dhulbahante oo uu maaragtay uu ugu weynaasaan isleeyahay sheekada ku maqlay. Mar alla markay taas arkeen
way ka kala carareen. Waxay yidhahdeen nin saasa oo odagii dhammaa oo maaragtay madaxiisii soo gooyey, annagu dhaxalna kama rabno, waana ka tagnay. taas uga tageen. marka horta dhalad dhashay saas inay yeelayaan ilamahan kulley. marka waxaa la isku haystaa wiilkan intuu ka yimid. marka wiilkii la soo helay meeshuu ka yimid waa xaggee? sheekada sida igu soo gaartay, wiilka wuxuu ahaa wiil Etoobiya dhinaceeda nooga yimid, oo ka yimid, oo reerka markaas uga yimid, lagu soo macnaha la soo qabtay. asalkiisuna uu ahaa falaashi. falaashow kolley qofkii yaqaanay. falaashuhu waa yuhuudda nooc ka mid ah oo ku nool Etoobiya. yuhuudda marka dhaqanka lagu yaqaano waa dhaqan aad runtii u xun. dhaqankaas haddaa fiirisid dadka Soomaaliyeed, qabiilka keliya oo dhaqankaas ku sifoobay waa Majeerteenka. yuhuudda waxaa lagu yaqaanaa dhaqamadeeda ka mid ah inay horta xukun jeceshaa. marka ugu horreyso dadka inay xukunto inay jeceshahay. waxaa kaloo lagu yaqaanaa ninka yuhuudka ah saaxiibkiis ninka saaxiibka ka dhigta inuu mar walba ka fakero ninkaas hadhow haddaa iska hortimaadiin meeshuu ka soo geli lahaa. macnaha meeshaad ka soo geli lahayd hadda sii fiirso. waa nin saaxiib qof ka dhigtay, qofkaana uu daacad u yahay. isagana wuxuu ka fekeraa hadhow haddii wax dhacaan ood isku xumaatiin meeshii aad ka soo geli lahayd iyo sidaa u dhibaatayn lahayd qofkaas uu ka fekeraa. xukunka waxaa waaye, xukunka waa dad aad u yar runtii. marka waxay jecel yihiin caalamka dadka degan inay xukumaan, oo waxayba aaminsan yihiinba dadka caalamka oo dhan ama bini aadanka oo dhanba in ayaga loo abuuray inay u shaqeeyaan. arrintaasna waa ka dhabeeyeen oo waxa waaye runtii dadku waa u shaqeeyaan, laakiin dadku ma oga inay u shaqeeyaan. waayo meel walba ayagaa haysta, meel walba oo dhaqaaqda ayagaa haysta adduunka. waxaa jirta hadda Soomaali badan oo ku jirta Facebook ama YouTube ama meelahan maaragtay social media ama Instagram ama waxaasoo dhan. horta waxa iskale waa yuhuud. ayagu marka waxay isleeyihiin, Soomaalidan ka hadlaa, waxay isleeyihiin yuhuudda wax ma siisid macnaha, laakiin waxay u siiyaan si indirect ah oo keliga ay soo galayaan aba lacagaba runtii. oo waxaa lagu xisaabtamaa websiteyada in kelig ama gelidda qofka uu galayo inuu maaragtay
lagu xisaabtamo oo website-kay ka maaragtay ay ka gelid badan tahay in xayeysiinta la keensado haddaan website-ka la gelin aan xayeysiin la keensanayn runtii marka siyaabaha loogu shaqeeyo runtii oodan ogeyn waa saas adigu waxaa is leedahay website iska gal dadkaaga iska salaan waxa iska fiirso video iska fiirso laakiin intaas waxaa waa iyaga laga u socota markaan halkaas uga soo gudbay yuhuudda dhaqanka marka majaaritaanku ay leeyihiin maxaa ka mid ah yuhuudda waxay leeyihiin horta hore lama dhex degi karo yuhuudna lama noqon karo runtii yuhuudda waxay ku leeyihiin waa loo dhashaa yuhuudnimada laakiin lama noqdo marka hadda dadkan falastiin oo kale iyo dadka ag degan iyo dadka u yimaadoon yuhuudda ahayn aad u takooran runtii waxaasna waxa keenaya waxa waaye in la dhex galay diidayaan macnaha oo lagu milmo oo wax lala qaybsado dhaqankaas yaa annagala marka dhaqankaas waxaa la majartaan runtii majartaanka runtii saaxiibnimadiisu waa saas oo inta aad saaxiibka la tahay inuu ku qiyaamo uu isku dayaa runtii ama wuxuu kasii fakeraa hadhow haddii aad isku dhacdiin meeshii uu kuusoo mari lahaa dhexdegiddaa kuusoo hartay ninaa wuxuu igu sheekeeyey ayaga ah markii qof aan ayaga ahayn uu dego gobolladaas bari iyo nugaal iyo waxaan samaynaahu yidhi caruurta lagu dalbadaa markay casarkii tahay rabbi oo qofku mindhaa inta shaqada ka soo rawaxo ama meeshu howlihiis soo dhammaysto oo guriga nasasho u yimaado markaasaa tuuriyo si qofkaas u cararo dhaqankaas meeluu ka jiro soomaali runtii ma jirto aan ayaga ahayn xukun jacaylka waxay yuhuudda ugala mid yihiin soomaali oo dhan hadday baaba'do soomaali oo dhan oo la yidhaahdo ninka majaaritaanka ah xukun qabo raalliga ku yahay daba dhilifnimada iyo si ay ku gaaraan meeshaas waxay aad daba dhilif ugu yihiin runtii oo aad ay maaragtay ay daba dhilif ugu yihiin waddamada reer galbeedka si xukunka danahoodu xukunka ay rabaan ay ugu hirgasho waxaa taas kaaga daliila 1930 waxaan arkay 4 nin oo majarteena sawir 4 nin oo majarteena oo sheekadu macnaha masawirkaas ka hooseyso oo masawirka maaragtay sheekeena wuxuu yahay sharaxaysa ama maqaalkaas masawir ku saabsan uu yahay nin talyaani ah oo inta markab ku yimid markabkii doon ka soo raacay oo doontii dhulka intuusan soo gaarin yidhi anigu cagayga dhulka dhigi maayo dharkana iska qoyn maayo waa in lay qaadaa waa in lay qaado 4 nin oo 3 ninkaas 4 nin oo 3 anuu masawir ku arkay qof damiir leh qof bini aadan inuu qaado kolley wax ma aha maaragtay dadku qaadan karaan runtii qof bini aadan inaad qaado waa damiir xumada ugu xumo
taasna waxa ay macnaha runtii ku gaareen xukuumadda hadda ay sheegtaan oo annaga wax soo xukumi jirna ay dhahaan ka soo qaad ninkii la dhihi jiray cali yuusuf oo kale. cali yuusuf wuxuu ahaa governar talyaani u ahaa, macnaha talyaanigaa meesha geystay. markii dambe oo isku xumaadeenna wuxuu ku dambeeyey xabsi ku yaalla Calgaabta oo uu ku dhintay runtii. marka qof awood leh oo asaga awood keligiis keensaday ma ahayn, waa xukun talyaani hoostiis uu ku jiray. talyaanigan wakiil ka dhigtay qof alla qofkii ka fakada asaga oo territorigaas oo markaas talyaanigu u dhiibtay ka baxa ma soo raaci jirin runtii. marka taasaa kaaga daliil inuusan awood saasa lahayn. marka mideeda kale waxaan kaloo rabaa xagga xididka inaan lala xididi karin dadkan runtii jaarteenka ah. qiso aniga i soo martay aa jirta runtii oo wiil gabar walaashay ah, gabar habaryartay dhashay uma jaarteena runtii. qaba in waagii hadda muxuu ahaa etoobiyaanku soo galeen Soomaaliya inaan Virginia ugu tegay. wiilka marka gurigiisa mar alla markuu ku nasa is yidhaahdo waxaa soo dhoobanaya gabadha dadkeeda dadka ah oo macnaha uma jarteen ah. wiilkii meeluu fadhiistu waayo waxa waaye mar walba cay iyo aflagaado iyo balaayo maaragtay ee meesha ula fadhiya. qofka xididkaana waxaa loo baahan yahay runtii xidid ku laha inaad ka xishooto. heer wuxuu gaari jiray wiilka isagu inta ka roonaado isaga taga meesha maaragtay oo meelo kale aniga iyo asaga inta israacno meelo kale iska aadno. marka dhinaca xididkana waa kaasaa runtii oo xididnimadoodu ma fiicna runtii. arrintan haddaan waan idiin sheegay oo idin leeyahay xagga maaragtay falaanshanimada iyo dhaqankooda iyo waxaan ka maqlay niman harti ah oo ku sheekaysanaya arrintaas. hartida kale oo aan majarteen ahayn macnaha oo taariikhdaas ka sheekaynaya runtii. marka iyaga laftigooda waa ogyihiin inuusan maaragtay ahayn maaragtay Soomaali inuusan ahayn oo falaash dadaa marka waxay leeyihiin waaba qof muslina qofkaana seed ugu tilmaantay falaasho. horta sideedaba dhalashadu iyo diintu labay kala yihiin runtii. dhalashada qofku waa u dhalan karaa meel diinna waa qaadan karaa. hadda yuhuudda waxaa jira kuwa kristana kuwa muslimnimo sheegtay waa jiraan laftigooda oo taariikhda soo maray. haddana dhaqankoodu isma bedelo, dhaqanka isma bedelayo. waxaa waaye dhaqanku waa isku mid. yuhuudda dhaqankeedu meelnaba iskuma bedelo, ma bedeli karto diin, ma bedeli karto runtii.
marka arrintaas halkaasi maaragtay qabiilkaas halkaasuu ka yimid. marka maanta intaasaan kusoo gabagabaynayaa. aad baa u mahadsantihiin dhegeysiga aad dhegeysateen, iyo haddaadan aqoonin ka faa'iidaysiga aad ka faa'iidaysateen. marka